السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الشكور محمد وإذن كسو دوادا حلقتين اللبات oo kamid ah silsiladii xalqadaha aynu kaga hadlaynay sida loo sameeyo website ku dhisan blog. Xalqadeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa sida loo bedelo template-ka. Waa changing the template, bedelida template-ka. Template qofkii aan garanayn waxaynu ku soo sharaxnay qoraalkii Soomaaliga ku qornaa ee tarjunaa oo aan ka dhignay PDF ilaa 4 page buu ahaa filaya haddaanu 3 ba ahayn. Marka template iyo website wax kasta inuu uga baahanay ereyadaynu isticmaalayno oo dhan halkaas ayaan ku qoray waad kaga faa'iideysan doontaa. Marka waa qoraal Soomaali ku qoran wayna download garaysataa. Xasharkii hore la socday ee xalqadii ugu horeysay furnay waxaad ka helaysaa muxtarif bloggeena ayaad ka helaysaa PDF-ka isagoo media file ayaad download garan doontaa. Waana wax aad u yar oo markiiba dhamaanaya. kaas ayaan jeclahay inaad download garayso si aad u fahanto template. Marka template waxaynu ku soo sharaxnay inuu yahay muuqaalkeenii hore ee bloggeena muxtarif test aynu sameynay maalintii dhawey. Muuqaalkiisu waa kan. Marka muuqaalkan ayaa la yiraahdaa template. Muuqaalkan noocan ah isbedbedeli kara muuqaalku. Marka template-kan ayaan bedelinay. Si aad u bedesho waxaa jira boqolaal ba maaha malaayiin ayaa jira template oo free ah, bilaash ah ayaa jira oo kuwan oo dhan ay ka mid yihiin. Kuwaas ayaad soo download garayn kartaa adigoon designer ahayn oo waxba samaynin. Uma baahnin inaad samayso. Marka wanagii hore u soo sheegnay waa no code wax code ama waa isticmaali doona. Marka kan ayaan rabnaa inaan bedelno. Muuqaaladan oo dhan waa qaar free ah halkan aad ka soo download garayn kartaa. Marka saynu kan u bedelno waa inaad kuwan oo kale mid kamid ah soo download garaystaa amaba aad adigu mid samaysataa haddii aad mid samaysan karayna kuwan download garayso. Marka anigu hadda kan blog mag baan isticmaalayna on download garayna download ayaan leenahay. waxaad arkaysaa inuu soo baxay barnaamijkii aan download-ka isticmaali jiray ee wax ku download garayn jiray bay soo baxay. Marka desktop baan geynayaa magaciisana waan la soconayaa blog mag template. Marka uu saabo dhamaaday wada aragtaa aan iska xiro bartan u yimi blog mag template. Marka template-keeni blog mag waa kan kaas weeyaan template-ka. Kan ayaan daba rabnaa in aynu upload garayno qaadno. Marka hore computerkii baan ku save garaynay template-kii waan keenay kadib waxaynu tagaynaa bartii control panel-ka aan ka maamuli jirnay bloggeena aan tagaynaa si aynu bloggii hore template-kii hore bloggeena aynu uga bedelno kana aynu uga soo qaadano. Marka waxaad tagaysaa bloggii bartii aad ka maamulaysay control panel-ka. Haddaba markaan rabo in aan tago bloggeygii bartii aan ka maamulayay siin tagay bartan sare ayaa waxaan ku qorayaa sidii maalintii hore blogger.com sida shaashada kaaga muuqata. Kadib gmail-keygii aan ku sameeyay ayaan gelinayaa iyo password-kiisa. kadib baan leeyahay sign in. waxaad aragtaa in bartii aynu ka maamuli jirnay control panel-kii ahayd weliina uma soo bixin. halkan oo kale waxa laga yaabaa in ka soo horbaxdo uu san ku leeyahay Google. Marka si aad uga baxdo wax kala maaha tag gmail-kaaga inta halka ay qabato gmail-kaaga qabo kadibna bartan sare blogger.com ku qor. marka waxaad aragtaa in uu soo baxay bloggeygii. bartan waa bloggii maalintii dhawada muxtarif test aan sameeyay. hadda waxaan oran karaa new blog mid labaad samee sidii maalintii aan deeto u sameyn karay kan labaad. marka muxtarif test waa blog imika aynu sameynay aynu template-ka ka bedeli doonaa. isagaan ku dhufanayaa si template-kii aan uga bedelo. haddaba si template-kan aad u bedesho oo muuqaalkan aad u bedesho oo ugu bedesho muuqaalkii kale imika aynu soo download garaynay waxaad tagaysaa laba habad haysataa laba option ood ku bedeli karto. optionka koowaad waa inaad template qabataa kadib backup and restore aad tagtaa halka ay ku qoran tahay backup and restore kadib choose file aad raacdaa ood soo doorataa
XML kii XML versionka waxaad ku garanaysaa in macnaha template-kii aynu soo download gareynay desktop-ka dhiganay waa XML file. XML baad ku garanaysaa. kaas waa mid. habka kale ka fudud eed kusoo qaadan karaysaa waxa weeyaan in intaad tagto desktop-kaagii adigu ood bahalkii right click dul siiso template-kaagii aad tiraa open with, kadibna aad tiraa notepad, kadibna dhammaantii control iyo A aad ka taabato keyboardka ood soo koobiyeyso koodhka gebigiisaba. markaad soo koobiyeyso aad la timaado bartan, kadibna aad tiraa edit HTML. HTML-ka uu ka samaysan yahay blogayga, muuqaalkan template-kaygani HTML-ka uu ka samaysan yahay ii edit garay wadanaysa. waa kan HTML-ku ka samaysan yahay. kadib control A dheh koodhkansna masax gebigiisaba. markaad masaxdo kan kale sideeto ku besti garee gebigiisaba, kan kale ku besti garee. markaad dhammayso bestinka waxaad tiraa save template. template-kan save garee. weli waxaad aragtaa saving uu save gareeyay. kadib halkan waxaad aragtaa iminka wuxuu ahaa muuqaalkeena template-ka noocan ayuu ahaa. bal markaynu save gareynay template-kan kale aynu nidhaahno view blogii bal dib u eeg. waa kaas noocaas ayuu soo baxay. kan waxa weeyaan waa title-ka uu leeyahay. halkaana waa ka ku qoran muxtarif test halkan waa ka ku qoran. okay, halkan newska loogu talagalay inuu soo saaro headline-ka newska ayaa soo gelaya. bartaan kale waa subscribe-kii oo lagaa subscribe garay. find us on Facebook, popular posts iyo most popular, waxaas oo dhan iyo Flickr images, waxaan oo dhan way edit gareynaa. halkan yar waxa loogu talagalay markuu bahalku page-ku weyn yahay hoos soo dego, haddaan taabto xaggiisa ayuu igu celinayay si degdeg ah. halkan waa search-gii oon halkan text-gii gelin karo oon wax ka search-gayn karo. waa bartaas. waa kaas. qaabkaas ayaynu ku dhammaynay sida template-ka loo bedelayo. intaynu darsiga dambe ku kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.